taliska ciidanka badaha Soomaaliya iyo difaaca xeebaha ayaa maanta dowlatus ka sameeyay magaalada Muqdisho iyagoona sidoo kale ay soo dhaweeyeen guushii u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed iyo go'aankii xukunka maxkamadda ICJ waxayna u mahadceliyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo diidmadii uu diiday in aan gorgortan laga geli karin taaka ka mid ah dhulka iyo badda Soomaaliyeed taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya Admiral Cabdixamiid Maxamed Axmed Dirir ayaa fariin u diray ummadda Soomaaliyeed kadib go'aankii maxkamadda ICJ ee ku shaacisay in Soomaaliya ay kaga guuleystay dowladda Kenya kiiskii muran badeedka u dhaxeeyay labadaasi dal وحلقي بدأ الصومالية أي لو رجل هايين عندما ضد الصوماليات حق أولها إن الدفاع دان عندما بقول إنه إلى الناس مجرته اسكو في اللانشان قارن إن شاء الله مركب حلية هو جول سويتي إن شاء الله وحنا تشيننا إن الدوان أي هو قليتونان لما نبريه ويحدوده لو تلقى إن عندك بدو إلى إن شاء الله يكون في اللان waxaan kaloo halkaan aad ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed oo aan leeyahay waa guuldii soo hoyatay mar dambe film maysaan inaad badiina khayraadkeeda aad cid marti uga noqonaysaan ama aad ku hamiyeysaan in badiina la iska guranayo aad isha ka daawanaysaan insha Allah waxa ka faa'iideysan doona muwaadiniinta Soomaaliyeed khayraadka badda ku jira cid dambe oo ajnabiya ama wadamo shisheeye ama kuwa kan isaga soo dhuumanaya insha Allah waxay noqon doontaa inaan tilaabo adag ka qaadi doono ugu dambeyntii ciidamada ilaalada xeebaha iyo difaaca badaha Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa ka soo kabsanaya burburkii ka soo gaaray dagaaladii sukeeye ee dalka Soomaaliya ka dhacay waxayna iminka haystaan doonyo dheereeye iyo qalab ku filan ay kaga hortagi karaan cid walba oo dandaansi qaawan ku soo sameeysa dekadaha iyo xeebaha dalka Soomaaliya عبد الرحمن أتوري 5 TV نيروبي